kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa kaydka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay qorshayaal halis badan isla markaana farmaajo la doonayay in looga saaro madaxtooyada Soomaaliya ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo dagaal culus uu ku dhexmaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug iyo saraakiil ciidan oo ka qayb qaatay joojinta dagaalkaas iyo in la kala qaaday ciidamada dagaalamay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo weerar adag ku qaaday madaxweyne Farmaajo kuna taliyay in laga soo saaro madaxtooyada qaranka ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya oo howlgalla amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyay degmo ka mid ah gobolka Gedo iyo maamulka Puntland oo xukun dil ah ku riday nin dil ka geystay deegaanada maamulka Puntland intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran waa 4 bisha koowaad sanada 2021 haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo soo booqatay channelkeena ha ilaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si adag u weeraray madaxweyne Farmaajo isagoo ku taliyay in madaxtooyada laga saaro xalka qallaasaha Soomaaliya wuxuu ku jiraa in Farmaajo uu baneeyo madaxtooyada si loo qabto doorasho sida uu aaminsan yahay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo qoraal ku daabacay ciwaankiisa gaarka ah ee Facebook ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Farmaajo inta madaxtooyada uu ku jiro uusan joojinayn dhibka sida laga soo xigtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo qoraalkan ku daabacay bartiisa Facebook ayaa xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya waxay la mid tahay tan waqti xaadirkan ka jirta waddanka Lubnaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah taliska madaxweyne Farmaajo isla markaana soo mucaaradaya tan iyo markii uu xilka qabtay ayaa xilligan waxa uu weerar ku qaadaya madaxweyne Farmaajo in uusan ogoleen nidaamka xilligan dalka ka jira ee doorasho in la qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ah xubnaha mucaaradka isla markaana saameynta weyn ku dhex leh midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo si weyn kaga soo horjeeda nidaamka wax ku maamulaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir dhowr jeer ayuu waxa uu soo jeediyay aragtiyo kala duwan oo ku aadan in la badbaadiyo dalka isla markaana meesha laga saaro madaxweyne Farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ku celceliyay in doorashada dalka ay jawi nabdoon ku dhici karto marka meesha laga saaro madaxweyne Farmaajo isla markaana uu la mid noqdo musharaxiinta kale ee u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya gabi ahaanna madaxtooyada uu baneeyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xilligan sidoo kale waxa uu qayb ka yahay siyaasiyiinta sida weyn u garab taagan ra'iisul wasaare Roble isla markaana ka qayb qaatay xiisadii u dhaxaysay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha tan iyo markii ay soo shaac-baxday Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xubnihii sida weyn u dhaliilay isla markaana kaga soo horjeestay doorashooyinkii lagu qabtay Dhuusamareeb Baydhabo iyo Muqdisho isagoo ku doodayay in gabi ahaanba doorashooyinkaas la boobay shakhsiyaad badan oo madaxtooyada ay wadatana ay ku soo baxeen hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dhowr jeer sidan oo kale waxa uu weeraray isxigxiga ku qaaday madaxweynaha dawladda Soomaaliya isagoo ku tilmaamay nin ku mayl adeegay kursiga isla markaana aanan doonayn inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah xilligan waxay u muuqataa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu helay fursadii ugu weyneed oo ku aadan in weerar isxigxiga uu ku qaado madaxweyne Farmaajo maadaama ay taagan tahay xiisad culus oo ka dhex aloosan ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku dagaalamay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegay in halkaas uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa Gorgor iyo ciidanka booliska ilaalada xarunta degmada iyo baraha control ciidamada Gorgor ayaa sida wararku ay sheegayaan ka hor yimid howlgal ciidamada boolisku ay wadeen kaas oo ku saabsanaa la dagaalanka maandooriyaha sida uu ku bilowday isku dhac labada ciidan dagaalka ayaa la sheegay inuu gaaray qaybo ka mid ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ha yeeshee wararka aanu helayna ayaa sheegay inuu jiro khasaare soo kala gaar labada dhinac ee dagaalanta iyo dad shacaba dagaalkan ayaa saameeyay isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Dhuusamareeb iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ay walaac ka muujiyeen dagaalka cuslaa ee u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegay inay ku baxeen dagaalkaas isla markaana ay isku dayeen in ciidamadaas ay kala qaadaan oo la joojiyay gabi ahaanba dagaalka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug maalmihii ugu dambeysay ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa waday howlgalla ay kula dagaalamayaan maandooriyaha iyo dadka ka ganacsada waxaana howlgalladaas ay ahaayeen kuwa ay sameynayeen ciidanka booliska dawlad goboleedka Galmudug kuwaas oo ah kuwa dagaalka la galay ciidanka Gorgor
ciidamo badan oo ka tirsan militariga sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa xilligan waxa ay ka howlgalaan oo ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug halkaas oo ah meel markii horeetaba ciidanka dowladda soomaaliya ee ahaayeen kuwo loo geeyey ololihii doorashada ee uu kusoo baxay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor dagaalka ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa la sheegay in saameynta ugu badan uu ku yeeshay dadka shacabka ee degan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug kuwaas oo ka cabsi qabay in dagaalku uu sii xoogaystay islamarkaana uu gaaro qaybo badan oo ka tirsan magaalada iyo duleedkeeda xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay qorshe madaxtooyada soomaaliya looga saarayay madaxweynaha dowladda soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddana ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha islamarkaana ah mucaarad ka soo horjeeda dowladda uu hogaaminayay madaxweyne farmaajo ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka bilaabay qorshayaal adag oo ka dhana madaxweyne farmaajo islamarkaana la doonayay in looga saaro madaxtooyada sida ay xaqiijiyeen ilaa aad ugu dhow madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa jira qorshayaal kala duwan oo uu caasimadda ka bilaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya qorshayaashaas ayaana qayb waxaa ka ah in madaxtooyada soomaaliya loogu galo oo laga soo saaro madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dadka uu kulamada la qaatay ayaa waxaa ka mid a odayaal dhaqan iyo sidoo kaleeta saraakiil ciidan kuwaas uu ka dhaadhicinayay qorshaha madaxtooyada looga saaray farmaajo xasan sheekh ayaa ku doodayay in farmaajo xilligan uu la mid yahay iyaga islamarkaana uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha laakiin uusan ahayn madaxweyne odayaasha dhaqanka ee xasan sheekh uu kulanka la qaatay ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo u riyaaqay soo jeedinta madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay u sheegeen inay raalli ka yihiin qorshahan xasan sheekh maxamuud oo ka mid a midowda musharaxiinta mucaaradka islamarkaana ah shakhsi saameyn dhexdooda ku leh ayaa xilligan dadaalada uu wado waxay yihiin kuwo uu doonayay in gebi ahaanba uu kaga takhaluso dowladda uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaanahaanba waxa uu wada abaabul ka dhana madaxweyne farmaajo islamarkaana ay qayb ka ahaayeen in lagu duulo xarunta madaxtooyada oo ciidamo ay ku galaan dagaal taas oo qaybo badan oo musharaxiinta ay diideen ololaha xasan sheekh ee ka dhankaa madaxweyne farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeydaba sii siyaadayay waxaana jira dadaallo kala duwan uu wada madaxweynihii hore ee soomaaliya uu ku doonayo in farmaajo uu noqdo shakhsi ka mid a musharaxiinta laakiin uusan sii joogin xarunta madaxtooyada sidoo kalena uu dego hoteelada ay degan yihiin hoteel la mid a xasan sheekh maxamuud ayaa loo arkaa qorshaha xilligan uu wada in uu yahay kii ugu darnaa ee uu qaadatan iyo markii ay soo baxday xiisadda u dhexaysa ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne farmaajo isagoo dadaallo badan ku bixinaya sidii looga guulaysan lahaa farmaajo qorshayaasha uu wada madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaana uu doonayay in madaxweyne farmaajo looga saaro xarunta madaxtooyada ayaa waxaa jira shakhsiyaad badan oo ka tirsan midowda musharaxiinta mucaaradka oo la dhacsan waxaase la ogeyn halka ay ku dambayn doonaan qorshayaashan uu wada madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo ah mucaaradka ugu weyn ee xilligan ku sugan muqdisho howlgal gaar ayaa laga sameeyey gobolka Gedo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgalla amni xaqiijin waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo goobaha ay ciidamadu howlgalkan ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah suuqa Beled Xaawe halkaas oo la arkay iyagoo dusha sare ka eegaya gaadiidka suuqa dhex maraya lama soo sheegin cid ciidamadu ay kaga shakiyeen amni darro ay ku soo qabteen howlgalladaas intii ay wadeen dowladda Soomaaliya ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2020 waxay markii ugu horeysay cutubyo ka tirsan ciidanka NISA ay geysay degmadaas waana bilo kadib markii doorashada Jubbaland loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe 22 Diseembar sanadkii tagay 2021 ay ahayd markii askari ka tirsanaa ciidanka NISA lagu qisaasay degmadaas kadib markii laba wiil oo dhalinyaro ahaa uu bishii November ku dilay degmada Beled Xaawo ciidanka dowladda Soomaaliya ee ka howlgala degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo oo iskugu jira military police iyo nabad sugid ayaa waxay yihiin ciidamo wax badan ka qabtay ammaankii degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo degmadaas oo ah mid dhacda xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay ku badnaayeen falalka amni darrada ah oo laga geysan jiray ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidankaas horkacaysa ayaa dhowr jeer waxay wacd ku mareen inay ka hortagi doonaan wax walba oo liddi ku ah amniga isla markaana aysan u dulqaadan doonin dadka ka dambeeya falalka liddiga amniga ku ah ee ka dhaca degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gedo saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee xilligan ku sugan degmooyinka kala duwan ee gobolka Gedo ayaa waxay bilaabeen howlgalla amniga lagu xaqiijinayo tan iyo markii lagu dhawaaqay in degmada Garbaharey lagu qaban doono doorasho ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxaana bilowday howlgalla ciidamadu ay ka sameynayeen deegaano ka agdhow degmada Garbaharey isla markaana loogu diyaar garoobay in lagu xaqiijiyo amniga degmada maadaama lagu qabanayo doorasho ugu dambeynna maamulka Puntland ayaa xukun ku riday nin dilka geystay deegaanada maamulkaas maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa dil toogasho waxay ku xukuntay Sahal Xasan Maxamed oo dhawaan Burtinle ku dilay marxuum Bishaar Jaamac Faarax xukunka maxkamadda ayaa goobta ay ka dhaceysay waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle garsoorayaal kaaliyaasha maxkamadda xeer ilaalinta guud ee maamulka Puntland ehelada labada dhinac iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
fadhiyo badan oo kiiska maxkamadda ka yeelatay kadib ayaa ugu dambeyntii garsoore Cali Ibraahin waxa uu ku dhawaaqay in Sahal Xasan Maxamed lagu xukumay dil toogasho kaas oo ah qisaasta marxuumkii uu dilay. Deegaanada maamulka Puntland ayaa dadka inta badan dilalka ka geysta kuwaas oo isugu jira dad shacab iyo askar ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Puntland waxaa lagu ridaa xukunno kala duwan oo qaarkood ah ciqaabta dadka ay dilaan una dhiganta dil toogasho. saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa dhowr jeer oo horena waxay digniin u direen askarta ka mid ah ciidanka dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo dadka shacabka ku dila deegaanada maamulka Puntland waxayna wacd ku mareen in qof walba oo dil geysta la xukmin doono laguna xukmin doono wax u dhigma dilkii uu geysto oo ah in isagana la dilo. guud ahaanna waxaa intaasi ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen kaydka wararka. haddii ay tahay markii kuugu horreysay ood soo booqatid janalkeena ha ilaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. siina la garee muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan oo jecel horumarka dalka iyo dowladnimada.